أبي أنا فاميلي بس ما كده من أمة الصومالية كل بو كده أنت أمة الصومالية إذن هو أبي لا نهودي runaaantii aabbahay habeenka u dambeysay oo subaxa waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda masarka waxaa ku dhiman 8 bilood hadda sii qorsheyso waxaa ka shaqeyn lahayd sidee jeceshaana u shaqaysid markaasaa waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawin jiray jaamacadda assignmentiyada maadada ugu dambeysay aabbahay u diray waxay ahayd maado la dhaho decision making problem and solving problem ka diyaariyay United Saga Ireland oo liiga diray jaamacadda East London University hadalka oo aabbahay oo mar walba oo hadalka Soomaalidu uu tagay oo qof walba oo Soomaali oo neefsanay Soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ay hadalkaas oo isoo diray anigana waxaa ku dhahay dhalintaan naga hawaalday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaayay dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dhalinay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo danteennuna waa dowladnimo dalkan wuxuu u baahan yahay dhalin runaaantii aabbahay wuxuu mar walba wuxuu jeclaa inuu qof walba Soomaaliya inuu caawiyo samafalo ayuu mar walbana wuxuu u hilsanaa inuu familkiisa iyo ilmihiisa iyo wax walba inuu kor u qaado mar walbana wuxuu igu waani jiray waxaa ka mid ahaa maanta adiga urudkayga horjoogaha familkida aad mahadsantiin isagana insha Allah taala waa taariikhda bisuga tagay waana mahadsantiin waxaan ku wareejinaa